gabadhii malaga ka naxay qisadani waxay dhacday waqtiyadii ay noolaayeen ummadihii hore waxayna ku saabsan tahay gabar socoto ahayd oo meel cidlaha iyada oo maraysa ay dhamaatay waqtigeedii nolosha gabadhu waxay dhabarka ku sidatay ilmo yar oo bilo kooban jiray dabadeed malagii nafta ka qaaday waxa uu ka naxay ilmihii yaraa ee aan cidlo la soconin marka uu hooyadiisa dhinaca aakhiro u kaxeeyo laakiin waxa uu fuliyay amarkii Ilaahay oo naftu ayuu ka qaaday muddo dheer kadib ayaa loo diray inuu nafta ka soo qaado oday daa oo uu kula kulmay isagoo ul ka samaysanaya meel ulaha lagu sameeyo oo uu leeyahay adkay salka ushan waxaan doonayaa inay in badan i hayso ala kulmoodkii waxa uu ku qoslay odayga daada ahaa iyo sida ay noloshu ugu dhamaatay ee haddana uu leeyahay muddo dheer ayaan u baahanahay inay ushan i hayso dabadeed Ilaahay ayaa ku yiri malagii sharaftayda ayaan ku dhaartay ninkan ka qosliyay waa ilmihii yaraa ee berigii aad ka ilmaysiisay ee cidlada joogay subhanallah alle ma dayaco id uu abuuray kumana ilaaliyo oo kaliya waalid iyo inay cidla joogto ee ilaalada iyo dayactirkuba dhinaciisa ayay ka yimaadaan